السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن إذا لهنتين مال والباء الدنيا ذا كجوكتان إن waxaan rabaa muuqaalka inaan uga jawaabo su'aal aad ii soo jeedatay oo cajiib ah oo muhiim ah su'aashaas oo ah isku waqti ma samayn karaa in aan muruqa dhisid sameeyo iyo miisaan dhimid muxuu ahaay to miisaan dhimid markaan leenahana waxaa ku hoos duugan fat loss ama inaad xeerta iska yaraysid marka su'aashu waxaa waaye hal mar ma samayn karaa muscle gain iyo fat loss ama weight loss su'aasha jawaabteedu waa haa laakiin ma fududahay jawaabtu waa maya waxay u baahan tahay diet strict ah inaad raacdid oo aad samaysid wax loo yaqaano markay gymka iyo nutritionka la joogo caloric deficit oo calorie intake-gaada caadiga ahay uu jirkaadu u baahnay ka yar inaad siisid haddii si kale loo dhahana jirkaada kaloriga oo isticmaalayo oo gubayo in uu ka bato midka aad qaadanaysid tusaale ahaan haddii jirkaada uu ku shaqeeyo 1500 oo calories tusaale ahaan si uu u maintain gareeyo weight-ka hadeertaan miisaankaada meesha uu joogo waxaad u baahan tahay tusaale ahaan 1000 calories inaad tagtid 1000kaas caloriesna aad ku dartid aalmiitadii socodkii gymkii muxuu ahaay to dabcan muruqa dhisid haddii aan ka hadalnana qasab waa in exercise uu soo galo oo boodbood ugu yaraan iyo xarikabood iyo push up iyo body weight exercise waxyaabaha loo yaqaano oo aad isticmaalaysid culeyska jirkaada body weight exercisesku waa ku caawinayaan laakiin optimal muscle building level kuma gaarsiin karaan waxaad u baahan tahay inaad gymka gasho oo aad biro qaado weliba waxay dhahaan limitkaada heavyga su'aal ahaan culeyska boqolkiiba inta qaadi kartid ugu yaraan 65 inaad gaartid waa level aad u sareeyo 70 ku dhawaad waa meesha ugu yar ama ka badan 90 boqol xitaa aad kor u dhaaftid ilaa iyo boqolkiiba 110 inta aad culeyska qaadi kartid aad xadka gaarsiisid oo heavy aad maaragtay heavy lifting aad samaysid su'aashaas waxa soo hosgeli karto caloric deficit oo kaliya miyaan ku ekaahaynay gym maya waxa aad muhiim u ah la dhihi karaa videogan boqolkiiba 50 way ka tahay protein gramiska aad qaadanayso protein intake-gaada inuu ka bato normalka caadiga ah inta qaadi jirto tusaale ahaan waxay dhahaan qofka caadiyan qofka gym sameeyo qofka muruq dhisaayo iyo midka dhisembo aadanaha wuxuu u baahan yahay inuu qaato ilaa iyo 0.8 ama 8 gram of protein inuu qaato oo lagu dhuftay miisaanka qofka inta uu yahay waa sida healthiga ah oo caafimaadka ah qof walbana laga rabo ku dhawaad qofka 80 kiilo waxa laga rabi doonaa ku dhawaad 60 gram oo protein inuu qaato laakiin markaad ku jirtid xaaladan maaragtay dadka qaar ay ku tilmaamaan mucjisada gymka inaad hal mar same time aad muruqa dhisid iyo fat loss isla samaysid waxaad ku qasban tahay protein intake-gaada inaad double ka dhigtid oo 1.6 aad isticmaasho per kg su'aalaha haddaa 8 kiilo tahay waxaad ku dhufsanaysaa 1.6 ama 1.6 waa ku dhawaad 130 gram oo protein aad ay u adag tahay dabcan protein intaas leeg inuu qof consume gareeyo hal maalin ma waa si joogto ah oo usbuuciyo ama bilo si uu qofku isbedel u sameeyo muscle building uu culusna u sameeyo fat lossna u sameeyo intee ka helaya marka sourceska ugu fiican oo proteinka waxa common ka ah sourceska lagu jecel yahay ukunta kaleeto maadaama faatka ka carrayna wala ukunta faatkeedu yahay faatka fiicnaa oo loo baahan yahay jirkaada u baahan yahay waxaan qabaa ilaa iyo haddii aad cuntid ku dhawaad ilaa 6 ukun oo aad midka cadaanka bas aad ka cuntid oo jaalaha aad iska dhaaftid maadaama jaalaha faatka uu ku badan yahay dadku waxay u maleeyaan jaalaha inuu ku badan yahay proteinka laakiin cadaanka ayuu ku badan yahay cadaanka aad cunaysaa ilaa iyo 6 xab haddaad cuntid marka waxay dhaan halkii xab ukun oo iska dhexdhexaad ama large wax u dhaxeeyo waxa ku jiro wax u dhaxeeyo ilaa 6 gram oo protein marka jaalaha marka iska saartid dabcan 2 gram meeska go'ay doonto halkii ukun 4 gram oo protein ayaad ka tirsan doontaa same jaalaha inaad iska saarto faatka markii laga soo tago xitaa kaloriga ukunta halkii xabaad ka heli lahayd 80 ama badnaay xoogaa uu ka soo yaraanaya marka ukunta waa source fiican oo proteinka laga helo malaayga waa source fiican dad waxaan maqlaayay leh malaay oo dhan faat ma laha waa wax khaldan malaayada qaar waa leeyihiin tusaale ahaan salmon fishka oo dhakhaatiirta aad u soo qoraan
again waa faadka fiicnaay oo aad u fiican yahay laakiin markaan waxaan rabnaa in oo aan proteinka xooga saarno faadka iyo carbiska iska yarayno to marka malaayga digaaga ukunta hilibka to waxyaabaha noocaas oo kaleete looska laftirkiisa waa laga helaa laakiin faadka dartiisaan uga leexanayna maadaama uu faadku badan yahay looska marka proteinkaada sidoo kaleeto protein shake aad ka tagin haddii aad haysatid protein shake haddii aad soo gadan kartid aad uu ku caawinaya laakiin haddii aadan haysan dhib ma laha cuntooyinkaas xooga saaraysaa dabcan waa very expensive lifestyle in 128 gram oo protein maalin walba aad cuntid laakiin adiga go'aankiisa kale haddii aad rabtid hal mar inaad isla samaysid murqadhisid iyo fat loss waxaana sababta keenaysan in protein intake badana waxa waaye waxaan rabnaa fat loss ama weight loss inaan sameeyno caloric intake geenina hoos u dhignay marka waa maaragtay dadka qaar waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan su'aasha meeqa calorie ayaan jirkayga u baahanahay dadkoo dhan isku mid ah hore waxa u sheegnay in 2,000 oo celceliska aadanaha uu yahay average-ka dadka laakiin waxay ku xirnaayaysaa weightkaadu intuu yahay dhererkaadu intuu yahay exercise-ada aad samaysid ma moderate level ama high ama intensity mase wax iska isbuuc labada maalin waxyaabahaas factorieskaasi ku xirnaan doonaan maalin kale ka hadli doonaa waa 10 kaleeto PMR-ka iyo dhinacaas maalin kale ayaan u jeesan doonaa laakiin hadda waxaad xasuunaata su'aasha jawaabteedu waa haa waad samayn kartaa fat loss iyo muscle gain waxaan u baahan tahay caloric deficit inaad geshid oo aad diet-ka aad hoos u dhigtid calorie intake aad waxa cunaysa aad yareysid wax tayo leh aad cuntid intaas yar kunkaas calorie aad gubtid wax jirkaada soo galaayo wax ka badan at the same time waxa u baahan tahay protein intake aadana inaad asagana aad kor u qaadid oo aad xoogaa sacrifice gareysid fatka iyo carbohydrateska su'aalaha kala qabtiin fadlan qaybta hoose ee commentiga iyo wala soo wadaag aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.